His Excellency Vice President of Puntland Abdulhakim Haji Umar, Deputy Ambassador for Federal Republic of Germany, the number of ministers who are present today for Puntland, the rest of the delegation, and all the participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I would like to conduct my speech in Somali, since most of the people here are Somalis. And madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ku-xigeenka safiirka German, wafdiga intiisa kale, madaxa hay'adda UNICEF, hay'adaha kala duwan ee Jarmalka meesha fadhiya sida KFW iyo GIZ, dadweynaha meesha isugu yimid hogaaminayaan odayaasha qaarkood hadalkooda maqasheen. Waan u fiicnaan lahayd hooyooyinka inaan kelmad siino markii laga waqtiga ciriiriga dartii ma aan siin, laakiin participation-kooda laga garanayaa. Waxaa kaloo halka fadhiya number of Somali Puntland diaspora from Canada and Europe are also present here, who also contribute to this project. waxaa sharaf weyn ah inaan dib soo dhaweeyo wasaaradda caafimaadka iyo goobtan xafladda ay ka dhacayso daahfurka mashruucan qiimaha labada mashruuc oo qiimaha weyn u leh ummadda Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan. After the greeting, I'm very happy to welcome you today to the Minister of Health, where we are here to inaugurate the two projects, which is to improve and strengthen health systems in Puntland. مشروعنا waxay ka kooban yihiin laba sida aad u jeedaan. Mashruucu waxaa hirgelin doona UNICEF waxaana maalgeliyay KFW oo dowladda Jarmalka. مشروع كلام وحاهر قلدون ستوس أهر قلدون هي الجائزة أو وزارة العافمات كلها قلدون. This actually we are implementing two projects today. One project is led by UNICEF and funded by KFW. The other project is implemented by GIZ with Minister of Health. labada program isku talactooda horan maqasheen waa $3.6 milyan waxaa intaa weheliya arrintan waxay ka dhalatay mashruuc guud baa jiray oo Soomaaliya oo caafimaadkooda mideeya dhaqaalaha ku baxaya hase yeeshee sanadkii la soo dhaafay isticmaalkaas halka dambiisha lacagta lagu ridi jiray wuu burburay sidaa daraaddeed dadaal dheer waxaan u galnay in aysan naga burburin wixii hore loo soo qabtay iyo waxa la qaban doonaba ay noo hirgalaan. These two projects will cost at 1 million. 23. That 1 million 23. And initially these projects were funded through a joint health program. So the Minister of Health and their team tried to ensure that the continuation of the service. So that's why we have got these new projects. labada project waxa wehelin doona laba mashruuc kale oo weyn midna uu karkar ka bilaabanayo waa ka socda hadda laakiin launching gareyn change program la yiraahdo oo ay fangareynayso dawladda Ingiriisku waa mashruucyada labada mashruuc kale waa laba mashruuc aad uga ballaaran lacagtuna aad uga badan tahay labada tan mashruuca kalena bari iyo Dardafuur waxaa bixin doona dawladda Sweden iyo Switzerland oo soo. In parallel to these two projects we are launching today, which are focusing Mudug and Ugalan, there will be two other projects that will be implemented in Karkar, Bari and Dardafuur. The one for Karkar will be supported by the UK government, while the project will be supported by Switzerland and Sweden. dadaal dheer waxaan u galnay gobolada kale sida Sool iyo Sanaag iyo Cayn hase yeeshee nooma suurtagelin duruufo jira awgood in aan programyadan oo kale u helno hase yeeshee programyada emergency-ga oo aan ku xirnay programyada tan
برنامج أول بيروح بدل وصل. We also try to get similar projects for other remaining regions in Seoul as they are, but we could not get as an aim. So we could not get, but we have other projects through the emergency project programs we are running, and we are still trying to have. مشروع أنا صنع مركب مشروع كيف دبليو ومشروع بلارنا والله بقى يقولوا قسمة قيب وقيب تأريج عافماتك وحلي هذا عشان أقول لك بس هو بالعبطي أنت وحنا السوق اللي مفتينا مني ما أنا بدأ فران لكن ما دام السوق المسيب بالعبرني ومشاريع اللي عندك كويسة حرمها عافماتك قولوا يقالوا عافماتك أساسي أما برايم هيرت كير سيدا MC أكيدا هيرت سنتريدا هيرت بوستيسكا أما روح عافماتك وحلوه يرو وقبل وكل بحسن. The project of KWU is supporting two components. The first component is mainly focused on essential health services, which we have already started from January. دي أولاً نبدأ سؤال الواضح هو اسمه سيدا ما بيسوي بمسرية طيب بدن وحنا كل شيء استثال وين أو استعملت مياه اللو أولجما أو قروا كاسم الدوانة ريفيرال مدحوينه لثلاث ساعات ما دام مياه الحالي كنت على قروا حرمتها إن النقطة ماشي السنتر كا أو ريفيرال ولا And the other component is the health infrastructure, which will focus mainly on construction of hospitals, and we will have a referral hospital in Garwe. isbitaal kaas business wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo badan oo sinteen dhaqaale ka badan sida isbitaalada adduunka qaybta emergency ama xaaladaha degdega waxay yeelan doontaa qaybta daawada degdega qaybta qalliinka oo degdega meelihii lagu sugayay qalliinkii qaybihii lagu qali lahaa intensive care unit waxa loo yaqaanaa meesha qofku marka la daaweeyo ama la qalo lagu sii hayo inta looga gudbinayo chiefka bangi dhiig shaybaar raaji iyo waxa la halmaala ultrasound iyo waxyaalahoodii fayadhow biyo iyo xamaamyo Actually, the different departments that will be supported and respected. It includes to have an emergency department, it includes to have ICU, it includes to have OBD, and also operation theater, X-ray center, laboratory service, the blood bank, and also you're gonna have service. Yes. qaybtaas waa qaybta emergency-ga component-ka ka kooban tahay waa qaybta gurigta waa qaybta loogu yeero bukaan socodka ama outpatient-ga waa dadka dhakhtar raba inay booqdaan dhakhtar arko daawo loo qoro gurigooda ku noqonayo aan la jiifinayn qaybtaas waxay yeelan doontaa qaybtii dadku meesha ku sugayeen daaweyntii dhakhtarkii daawada meesha ku arkayay dhakhtarkii qalbigu meesha ku arkayay qofka caruurta meesha lagu arkayay hooyooyinka meesha lagu arkayay macnaha dhalmadii hooyooyinkaas wata indhaha tallaalka cudurrada faafa. The second part will be a comprehensive outpatient department, which will have treatment section, waiting area, operation or surgery, child care, maternity service for case and police care, eye care, immunization, and also the control of the communities. intaas uu isbitaalka inta dibadda banaanka ka isbitaalku uu usually loo qabsamaa labada qaybood oo banaanka usually ah iyo qaybaha gudaha la seexanayo qaybaha chiefka kuwa loo yaqaan qofka marka la chiifiyo qaybta daawada qaybta qalliinka qaybta caruurta qaybta hooyooyinka iyo ilmaha yar oo ka yar waa neonatology waxa la yiraahdaa murjaca siddeed iyo afar sano qayb. The inpatient actual department will cover also as well childcare, women health, childcare, women's health, and surgery for the children, and also the care for neonatal care. qaybaha waxa uu heliyaa qaybaha loo yaqaan qaybaha takhasusaadka waa qaybta madaxa ama maskaxda dadka laga jiro
qaybta indhaha, qaybta dhagaha, qaybta lafaha, qaybta keliyaha iyo kaadi mareenka, wadnaha iyo wixii la mid ah macnaha waxyaalaha takhasuska gaarka u baahan weeyaan qaybtaas oo wala gaarsiin. Other services that cover include the mental health, include respiratory disease service, include the eye care, ENT care, orthopedic care, with kidneys. Kidney service, also include what they call cardiovascular departments, which is also important, which will cover also the heart. waxa uu helinayaa qaybta la yiraahdo maamulka ama qolka dhan oo ah administrationka isbitaalka. waxaa kaloo ku xigaya machad isbitaalka kulli faaqan oo meel wax lagu bartaa, meesha wax lagu bari lahaa dadka caafimaadka baranaya, meeshay ku soo bandhigi lahaayeen ama presentations ku samayn lahaayeen oo howlashooda iyo wata qoladii wax lagu soo bandhigi lahaa. Also, the include is to have a training hall, an area that we manage to improve the knowledge of healthcare workers, which will also have facilities of halls and areas that they can also improve their knowledge. waxa uu helin doonaa intaas xarumaha caafimaadka labada gobol oo loo dhisay maamulka gobolka siduwayaasha gobolada oo midkiiba ka kooban yahay 12 qol iyo wixii si kale oo taageerayo LCDs. This will also be added like construction of regional medical officer offices, which each of it will consist of 2 rooms. isbitaalka weyn iyo gobolka arrimihiisa markaan ka soo baxo waxaa mashruuca ku jiraya cusboonaysiin ama dib u habayn 5 isbitaal degmo iyo 20 xarumood oo kuwa loogu yeero hooyooyinka dhallaanka ama MCH iyo health. Other components include the rehabilitation of 5 district hospitals and 20 health centers. مشروع وين وكيف دبليو ساس وقلنا ماضي مشروع على بعض ومشروع الجاي السنة ده اللي قشر مين وهو خاص فيها هاي هو يوي كي يقلانك سلو يريو إلى واحد يريك اللي مشى عروض تريو هو يوي كا هو سنا وحي كويان مشروع ذلك تسجارين بي كويان فرضوا واحد تاني مشروع عز واحد أوربني قبل الله السوري السنة هسه الشيء والنسعون markaadu aniga madaxweynuhu ku warqabsanay isoo weeyay waxa ay mashruuc aan may mashruuc hor raacay. Actually, the second project is the one actually implemented by GIZ and will mainly focus on maternal and child care and actually will complement the KFW project. ugu dambeyntii waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Jarmalka iyo hay'adaheeda KFW, GIZ, hay'adda UNICEF hantida ballaaran oo ay geliyeen horumarinta caafimaadka reer Puntland, bulshada reer Puntland. waxaan rajaynayaa haddaan bahda caafimaadka inaanu ka meel dhalino ee aanu isla noqon guul ka saarin. Lastly, I want to thank for the German government and its people and also the UNICEF that was implementing this project for the actually the massive financial support they are putting to this project, and also we are trying to ensure that the Puntland government to benefit from this project.